doorasho dadban waa ka soo guuray u noqon maayo ilaahay idankiis waa qof iyo hal cod waaye madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa councilka degmada heblaayo la yiraahdo laga keeno waa loo coday waa la doorana dadka doorana inta lagu dhacay iyo hebla xagga dib uga dhacay iyo waa la daahay iyo waxa soo dhan oo maxaan ku raasay sifaadka la bixinayaa hadafka waa wax muhiim ka meesha u socon inaan gaarno yaa muhiim ah safar dheer haddaad galaysid inaad qodax ku istaagtay iyo inaad ku hantaa turyootid iyo inaad bahal meel kaaga soo baxay iyo kulli waa suurtagal laakiin haddaad hantaa turyootad gadaal u noqoto safarkii meeshaad u socoto gaari maysid safaraan u soconnaa safarkaan u soconnaa waa qof iyo cod wax kasta oo jirana waa u maraynaa si aan u gaarno qof iyo cod sida nidaamku qabo dastuurka hadda noo degan qabo aan hadda dib u eegayno qodobada waqtigaan la jaanqa dastuurkeena 12 sano ka hor la sameeyay 12 sano ka hor xaaladdu dalku joogay maanta ma joogo kalsoonida dadka Soomaaliyeed dawladnimada ay ku qabeen maanta ma joogto meeshii waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku qanacsanaadaan doorashadaas qof powerka awoodda ilaahay iskala dadka loo celinaa dadku inay doortaan waaye war Soomaaliyeed dabarka 34 sano ummadeena ku xirnay inaan gooynaan rabnaa kuwa dabarka inuu ku sii xirnaado rabo dhagahiina u furina waa dardaaran odayeed dardaarankaas Soomaaliyeed waxaan rabnaa dabarka 34 sano ka badan inagu xidhnaa in aynu iska furno haddaba kuwa doonaya dabarkaas inaan ku sii xidhnaano Soomaaliyeed dhag ha u dhigina waa dardaaran oday waa dardaaran madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dardaarankan u soo jeediyay shacabka Soomaaliyeed mar uu dhawaan khudbad jeediyay madaxweynuhu wuxuu sheegay 34 sano in ka badan Soomaaliya inay ku xidhnayd dabar kuwa doonaya dabarkaas in lagu sii jiro oo dalkan ayna ka dhicin doorasho qof iyo cod ah in aanay shacabka Soomaaliyeed kuwaasi ayna dhag sharaf ku siin dardaaran madaxweyne oo marka dhinaca wanaagsan laga fiiriyo loo baahan yahay in xisaabta lagu darsado balse waxaynu dul joogsanaynaa inaan ogaano kuwa markaasi raba in dabarkaasi ay Soomaaliya ku sii jirto si markaa ay u fududaato inaan kuwaas la dhageysanin oo aan dhag jaraq loo siinin kuwaasi dabarka raba inay Soomaaliya ku sii xidhnaato waa kuwii madaxweynaha Soomaaliya khudbadaha uu jeediyo marka uu doonayo inuu shacabka la hadlo mararka qaarkood waxaa ku adkaata in markaasi shacabka uu ku qanciyo rabitaankooda tusaale ahaan madaxweynuhu markuu ka hadlayo arrimaha la dagaalanka argagixisada wuxuu soo diyaarsadaa waa guulaysanay maanaan fashilmin sii dagaalami doonaa argagixisada cagtaan marin doonaa dhul badan baan ka xoreynay si fudud ayuu markaan madaxweynuhu isugu dayi karaa inuu fariin shacabka gaadhsiiyo fariintaasi sax iyo khalad run iyo been midkay doonto ha noqoto balse madaxweynuhu marka uu soo gaadho inuu ka hadlo arrinta masiirka dalka iyo jihada uu socdo iyo nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta ee dawladdiisa laga sugay markaasi madaxweynuhu inuu shacabka qanciyo aad ayay ugu adkaataa sababta ay ugu adkaato dib ayaan ka sheegi doonaa balse markaa waxay ku kaliftaa madaxweynaha inuu raadiyo hadallo macaan qurux badan shacabka uu ku dejiyo uu rajo iyo diilo ku geliyo uu markaasi madaxweynuhu isagu iska bixiyo sawir ah inuu rabitaanka shacabka diyaar u yahay uu geed dheer iyo geed gaabanba u fooli doono in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah intaas oo dhan madaxweynuhu wuxuu isku dayaa inuu shacabka ku kasbado balse waxa adag
oo ku adkaata isaguna uu ogsoon yahay isla marka uu hadalka jeedinayo sida uu shacabkii ku kasban lahaa intaas oo hadal ee madaxweynaha afkiisa ka soo baxday ay qalbiga shacabka Soomaaliyeed u geli lahayd sababtoo ah qofku marka uu hadlo ee uu ku hadlo hadal isaga qalbigiisa ka soo baxay oo ka dhab ah hadalkaasi waxa uu ku dhacaa qalbiga qofka uu la hadlayo ee kale marka uu maqlo balse haddii hadalladaadu ay markaasi yihiin qaar adigu aad sawir iskaga bixinayso wanaagsan waxaase gudahaaga ku jira ama rabitaankaaga uu ka duwan yahay taasi damacaagu uuna kaas ahayn ilaahay amarkii waxa adag hadalkaasi marka uu soo baxo ee uu dhagaha qofka ku dhaco inuu qalbiga galo dhibaatada jirta ayaa taas ah haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadallada uu u jeedinayo shacabka dhammaantood aad ayuu isugu dayaa inuu sameeyo aftahanimo qurux badan si fiican uu isugu soo hagaajiyey hadallo wanaagsan macaan ku qotoma waxyaalaha ay dadku doonayaan in dhagahoodu maqlaan balse marka ay dadku dhagahoodu maqlaan halkaas ayaa arrinku ku dhammaada qalbiga shacabka Soomaaliyeed uma dhaadhacaan sababtan horey baanu sheegnay damaca madaxweynaha ayaa taas ka duwan waa sababtaasi marka sababta aynu u leenahay marka horeba madaxweynaha way ku adkaataa balse hadday haddana ku adkaato oo isku dayo inuu qanciyo shacabkii caqabadda labaad ayaa iyaduna tan ah in shacabkii ayna ku qancin intaas haddii aynu ka gudubno oo sida madaxweynuhu hadalkan uu dhigay aynu u soo laabanno madaxweynuhu wuxuu sheegay isaga ahaan iyo dowladdiisa inay ka go'an tahay dalkan inay doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo madaxweynuhu wuxuu sheegay taas inay hirgelin doonaan caqabad kasta oo ka hor timaada inay jeeri doonaan in dalkan ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah ayuu madaxweynuhu mar kasta oo uu hadlo uu ku celceliyaa haddii haddaba madaxweynihii Soomaaliya ee dalkan ugu awoodda badnaa mas-uulka dalka ugu sarreeya ah oo taasi diyaar u yahay xukuumaddu diyaar u tahay baarlamaankii Soomaaliya diyaar u yahay maamul goboleedyadii dalku ayaguna sheegeen ay leeyihiin diyaar baanu nahay madaxweyne kasta oo hadla oo maamul goboleed isaga laftiisu marka uu madaxweynaha marka uu arrintan ka hadlayo uu u hadlo sida uu madaxweyne xasan sheekh u hadlo haddii dalkan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo ay tahay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee uu madaxweynuhu sheegay inuu dabarku ku xidhnaa muddo ka badan 34 sano haddii siyaasiyiinta hanka kale dalkan in ay xukumaan ee mucaarad iyo muxaafidba isugu jira iyaguna ay doonayaan dalkan in doorasho qof iyo cod ka dhacdo oo dowladda hadda xukunka haysa aanay xukunka sii joogin muddo kororsi aanay samaynin oo mararka qaarkoodba dowladda ay ku eedeynayaan in arrimahaasi ka gaabiso ay kula dardaarmayaan arrimahaas dowladdu si ficila inay ku fuliso intaasi oo dhan oo ka kooban dadweynihii Soomaaliyeed waxaa markaan aan isweydiinaynaa waa kuwee duulka markaasi hortaagan ee caqabadda ku ah in dalkan doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo waa kuwee dadka uu inoo sheegayo madaxweynuhu ee uu leeyahay ha dhegaysanina dhag ha u dhigina dhag jaraq ha u siinina kuwaasi waa kuwii haddiiba se uu madaxweynuhu sheegay oo carabka ku dhuftay si markaa dadka ay ugu fududaato kuwaas inayna dhegaysan kuwa ay yihiin madaxweynuhu wuxuu shacabka ugu soo bandhigi waayey ugu qeexi waayey u oran waayey waa kuwaas halkaas ayaa laga helaa diwaankoodu waa kaas damacoodu waa kaa siyaasadoodu waa kuwaas xadkoodu waa kaas iska ilaaliya ma dhaho mar walboo dadka dhegihiisu maqlaan madaxweynaha hadalkaas ayuu iska akhriyaa duuduubkee la garanayn jaha uu ku socdo iyo meeluu ka yimi waa lagu jahawareeray waxay ka mid tahay khudbadda madaxweynaha qaybaheeda jahawareerintaa ee aan la fahmin marka haddaba halkaasi xaalku uu marayo marka aynu sheegnay in dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta saamilayda kuwa xukunka haya kuwa xukunka u ooman kuwa maamul goboleedyada jooga doorasho qof iyo cod loo diyaar yahay madaxweynihii uu ku nuuxnuuxsanayo oo uu ku celcelinayo in dowladdiisa ay ka go'an tahay in doorasho qof iyo codihii ay ka dhacdo madaxweynuhu uu sheegayo dad aan la garanayn oo caqabad ku ah doorashada qof iyo cod ka ah waa in halkan aan ka dhaqaaqnaa oo aan ogaanaa xaqiiqadu waxa ay tahay hadda ayaynu xaqiiqada dul joogsan doonaa run ahaantii way jiraan xoogag
aan rabin oo aan doonaynin in shacabka Soomaaliyeed dabarka ku xidhnaa muddo ka badan 34 sano uu iska furo. way jiraan xoogag danley siyaasadeed ah oo markaasi shacabkan Soomaaliyeed ee dulman ay u afduuban yihiin, balse waxa adag in hogaamiyaasha markaas xukunka haya ay kuwaasi u sheegaan kuwa ay yihiin, ay yidhahdaan waa hebel iyo hebel iyo hebel, iyaguna ay noqdaan kuwa dareenka shacabka garab taagan, rabitaanka shacabka fulinaya. taasi ayaa marka ah caqabada hor taagan dalkan inay doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo oo shacabka xuquuqdooda rasmiga ah ay helaan ee ay wax ku dooran karaan, iyagana lagu dooran karo. sida aan wada ogsoonahay marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda madaxweynaha hadda xilka haya laba caqabadood oo hor taagan doorasho dalkan inay ka dhacdo ma awoodi kara inuu sheego, waana labada arrimood ee aasaaska u ah in markaasi xalka la gaadho. waa labada dhinac ee madaxweynuhu uu carabka ku dhuftay balse ay ku adkaatay inuu sheego labadaa dhinac kuwa ay yihiin. kuwa uu leeyahay madaxweynuhu dhag ha u dhigina, nasiib darro madaxweynuhu ma awoodo inuu sheego. sababta taasi keentayna waxa weeye labada dhinac ee uu madaxweynuhu leeyahay dhag ha u dhigina waxaa ugu horeeya dowladda isagu uu hogaamiyo. dhinaca labaad waa maamul goboleedada dalka oo isla dowladda federaalka ay wadaag yihiin oo lagu magacaabay golaha wada tashiga qaranka. shacabka Soomaaliyeed waxay u afduuban yihiin oo dabarku ugu xidhan yahay sida uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedada. labadan mataanaha ah waa caqabada shacabka Soomaaliyeed ee hor taagan in dalkaani nidaamkiisa dowlad dhiska ah uu dhaqan galo. waa caqabada hor taagan dib u heshiisiin dhab ah in dalka Soomaaliya ay ka dhaqan gasho. waa caqabada hor taagan in dalkaani iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku guuleystaan argagixisada inay iska xoreeyaan. waa labada awoodood ee maanta jira ee samayn kara waxa ay doonayaanna inay hor joogsadaan, waxa ay doonayaan dabcan aan idhaahda inay fuliyaan, waxa ay diidan yihiinna inay hor joogsadaan. haddaba labadii haddii ay kuwan yihiin sidee buu madaxweynuhu u sheegi karaa? markaa madaxweynuhu dhinac garowshiiyuu ka leeyahay, ma odhan karo annagoo dowladda federaalka ah iyo saaxiibadayada golaha wada tashiga qaranka ayaa caqabad ku ah in dalkan doorasho ay ka dhacdo, sidaas darteed hana dhegaysanina, waxaanu idiin sheegno dheg jaraq ha u siinina. madaxweynuhu awood uu ku yidhaahdo ma laha. markaas madaxweynihii wuxuu ku khasban yahay inuu si duuduuba u sheego oo uu iska yidhaahdo dalkan inuu dabarka ku sii jiro kooxaha doonaya dheg jaraq ha u siinina. ugu yaraan madaxweynihii inuu dowladdiisii ku qiro isagu uu isfashiliyo way ku adag tahay oo yidhahdo war annagaa meesha rabna, kursigaan xoogaa inaan iska sii joogno ayaan rabnaa, bahalku waa macaan yahay, dikororsigaasaanu iska rabnaa, balna yar daaya laakiin inagu aamin oo inaan doorasho idiin dhigi doono mustaqbalka. odaygii waa ku adag tahay. odaygii ugu yaraan taas inuuba yar qarsado oo uu eedda dusha ka saaro saaxiibadiisa ay ood wadaagta yihiin ee golaha wada tashiga qarankana, taasina way ku adag tahay. sababtoo ah dowladdii federaalka Soomaaliya waxay ku jirtaa aqal muraayada ah. haddii iyadu markaan ay dhagax tuurto saaxiibadoodii maamul goboleedada, muraayadahaasi waa jajabinayaan. marka khasaare intaa la eg dowladdii diyaaru ma ah. way og tahay dowladda federaalku inta iyagu ay doonayaan inay xukunka sii joogaan, inay muddo kororsi samaystaan, inaanay doorasho qof iyo cod ihii dalka ka dhicin, in ka sii badan inay saaxiibada maamul goboleedadu ay doonayaan oo iyagu ayba rabaan in maamuladaasi xukunkooda ay ka dhistaan boqortooyooyin iyagu ay iska leeyihiin oo sida khariijka oo kale ah. balse haddana iyadoo dowladda federaalku taas og, ugu yaraan way ku adag tahay eedda inay dhinacaas saaxiibadeed isaga riixdo. hadda waxaynu fahmnay dadkan uu had iyo jeer madaxweynuhu inoo sheegay ayna ku adag tahay inuu si fiican inoogu qeexo. haddana maxaa marka haddana madaxweynuhu uu ku darayaa intaas? madaxweynuhu wuxuu isku dayaa kuwa inuu ka leexiyo, mararka uu madaxweynuhu isku dayo inuu tafaasiil bixiyo, xoogaa hadalku uu faahfaahin ka bixiyo, amase shakhsiyaadka isaga gacan yarayaasha u ah
ee hadalka carabka kusii ballaarin kara uu amarka ku siiyo waxay u tallaabayaan oo ay sheegayaan dad aan awood u lahaynba inay caqabad ku noqdaan hadda in dalka doorasho qof iyo codihii ka dhacdo waa kuwaas waa dadka ay doonayaan dowladdii federaalka soomaaliya madaxweynihii qaranka golihii wadatashiga qaranka intii mas-uuliyadda dalkan lahayd in ay eedda iskaga riixaan waayo waxay ogyihiin kuwaasi maanta inay yihiin kuwa iska taag daran afka uun ka hadla marka maadaama ay afka ka hadlayaan difaaca kuwaasi ayay ka dhigayaan inay yihiin kuwan inay iyaguba yihiin sababtoo ah kuwaasi maanta xukunka ma joogaan shalay bay xukunka joogeen kuwa xukunka jooga maanta oo madaxweynuhu ugu horreeyo ee mas-uuliyaddii dalka xambaarsan ee dowladda federaalku ku xigto ee maamul goboleedada dalku ka mid yihiin waxay eedda u riixayaan dhinaca kale shakhsiyaad mucaarada dalkan xukun ka soo qabtay hadda u ooman inay meeshaan mar uu soo gaadhaan kuwaasa waxa ay ku sheegayaan inay yihiin qaaqlayaal iyo kuwo aan ogolayn in dalkan doorasho qof iyo codbihii ka dhacdo shalay ayay madax ahaayeen balse maanta waa shacab la mida shacabkan soomaaliyeed ee aan waxba awoodin ayagu maanta shacabka waxay dheer yihiin inay dhawaaqi karaan inay qolada meesha uga dambeysay eedayn karaan inay xagxagan karaan si markaasi ay ugu fududaato bal berri inay shacabku iyagana waxiisaan ay yidhaahdaan malaha bal kuwii shalay baa dhaamay bal kuwii hadda dib loogu celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladdiisa xukuumadda tan qaran shir guddoonka baarlamaanka ee madaxtooyada u dhaga nugul kooxahaasi ololaha ay wadaan marka wuxuu ku soo ururay mar haddii ay ku adag tahay dhinacyada rasmiga ah ee caqabadda ku ah in dalkan doorasho qof iyo cod ihii ay ka dhacdo inay farta ku fiiqaan haddii ay ku adag tahay waxa ay taa beddelkeeda qaateen inay farta ku fiiqaan mucaaradka ay ugu horreeyaan siyaasiyiin dalka soo xukumay maxamed cabdullaahi farmaajo sheekh shariif sheekh axmed xildhibaano hore siyaasiyiin aqoon-yahan dad hadlo oo iyagu isku daya uun inay ka hadlaan xaqiiqooyinka jira amase damac inay xukun ku soo laabtaan han ah leh xildhibaano iyagana ay ahaydba mas-uuliyaddoodu inay hadlaan inay dowladda farta ku fiiqaan ay ahayd inay la xisaabtamaan balse ay ku adag tahay oo albaabka hore isbaaridu ayu taallo shir guddoon u dhigay nugul madaxtooyadii baarlamaan ay dantu ku qasabtay markay ka soo baxaan hoolka baarlamaanka inay warbaahinta ka sheegaan wixii ay ka sheegi lahaayeen hoolka maadaama aan codkooda la dhegaysanayn maadaama haddii ay hadlaan la odhanayo uun ajantihii baad ka baxday amase wax la dhegaysanayo codkooda ayna jirin ay marka jeclaystaan inay bannaanka u baxaan warbaahintu inay makarafoonada hoos dhigaan inay markaa sheegaan waxa jira kuwaana dowladdii marka ay xoogaa isdifaaca muujiyeen ay damceen eedda inay iska riixaan iyaguna dowladdu ku soo eedaysay u riixaan dhinacii dowladda madaxweynihii qarankaaba wuxuu bixiyey qaaqlayaal waxaa lamida sidoo kale kuwii madaxweynaha ka hoos adeegayay guulwadayaasha u ahaa iyagana aflagaado iyo weerar iyo annagaa wax walba fulinayna qofna loo joojin maayo ayaa iyagana ay adeegsanayaan haddaba dalkan soomaaliya shacabku way ooman yihiin in dalka doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo waa rabitaankooda ugu weyn waxay ka soo daaleen doorasho dadba waxay ka soo daaleen doorasho xulasho oo hadda kaba dambeysay waxay ka soo daaleen muddo kororsi 1 sano iyo 2 sano muddo xileedkii loo kordhiyey waxay ka soo daaleen hogaamiye gobol oo isagu mar kasta isku caanashuba dastuur yaro gobolkaasi uu leeyahay markuu doono fura dhinacuu doono u jiheeya madaxweynaha soomaaliya eela way naga go'an tahay inaan doorasho qof iyo coda fulino afkaas mooye wax ficilihii ma socdaan waa qawda maqashii waxna ha u qaban ma aragtay madaxweynaha qaranka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u ololeynaya doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha oo baarlamaanka arrintaasi kala hadlay ku cadaadiyey sharciyadaasi doorashooyinka ee inay dedejiyaan ansixiyaan ma aragtay xukuumadda madaxweyne ku riixaya shaqooyinkan yaryar ee macno darrada inay ka baxaan inay dalkan barnaamijkii doorasho soo diyaariyaan ma aragtay madaxweyne aan jeclayn madaxtooyada inuu saacado badan ku qaato balse jecel inuu shacabka soo dhex galo oo uu dareenkooda dhegaysto oo fariintaasi uu u gudbiyo golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka ma aragtay madaxweyne safarada faraha badan ee uu ku tegaya dibadda culayska ku saara dalka gudihiisa iyo maamul goboleedada ay saaxiibka yihiin ee lagu magacaabo golaha wadatashiga qaranka ma aragtay madaxweyne waqti dheer la qaadanaya hogaamiyaashaas madaxweyne axmed maxamed islaam u tegaya ku qancinaya meeshaan uu ku raagay inuu ka fariisto inuu shacabka u banneeyo inuu fursad siiyo oo doorashada qof iyo codii hoos ay deegaanka jubbaland ka soo bilaabato ma aragtay madaxweyne tegey koonfur galbeed oo cabdicasiis lafta gareen oo isagana saasoo kale ah ku qanciya inuu deegaanada doorasho ka qabto runaantii midna maynaan arag waxaan ogeyn shacabka koonfur galbeed oo rabay doorasho inay dhacdo ee madaxweyne lafta gareen inuu waqtigii doorashada qabto kacdoon sameeyey madaxweyne xasan sheekh uu markaasi qorqabad ku qasbay inay xukunka
ee lafta gareen sugaan inta muddaxileedkiisu dhammaanay kadibna muddaxileed kaloo 1 sano ugu dhufto waxaan aragnay madaxweynaha Soomaaliya oo Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam tegay ku taageeray nidaamkiisa halkaasi ka jira ee keligii taliska ah mucaaradka ugu baaqay inay iska soo xaroodaan ee dawladdaasi go'aanka qaadato oo la dhageysto waxaan aragnay madaxweynahaas awoodda badan oo isagoo isku badayay in dastuur amaba sameeyay oo dhaqan geliyay dastuurkii deegaanka maamul goboleedka Jubbaland furay markaasi qodobkii isagu uu doonayay ku soo darsaday ee ah in muddaxileed kale markaasi uu dastuurka u ogolaado waxaan ognahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo hadda ah madaxweynaha Jubbaland ee dhaartu uuna harsan tahay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saaxiibkiisa ku raacsan maadaama uuna ka hadal cadaadis ku saarin dhag jalaq u siinin rabitaankii shacabka Jubbaland iyo shacabka Soomaaliya maamulada kale waa la mid galmudug maamulka kale isagana curdinka Hirshabeelle kuwan la mid yihiin waxaan ognahay kacdoonadii ka dhacay Hirshabeelle kala qaybsanka ka jira ee maamul Hiiraan state iyo maamul kale oo Hirshabeelle ah ay Jowhar iyo Beledweyne ka kala taliyaan ayna dadkaasi isaynin khilaaf awoodda ay isku haystaan iyo nidaamka maamulkii Hirshabeelle uu jiro waxaa ilaahay hadda madaxweynuhu kama keenin kuma qancinin hogaamiyaasha magaca Hirshabeelle inay bedelaan inay keenaan hoggaan dadku ku qanco iyo barnaamij Hirshabeelle lagu miday waxay ugu fudud tahay madaxweynuhu olole ka wada galmudug oo markaan sida ay wararku sheegaan madaxweynaha iyo dawladda federaalka ee hadda xilka haysa ay jecel yihiin meesha ugu horeysa ee ay doorasho ka dhacdo ee lagu tijaabiyo inay tahay hogaamiyahaasi maamulka galmudug qoorqoor oo markaasi siyaasaddiisa ayna dawladdu ku qanacsanayn in lagu bedelo hogaamiye ay dawladda federaalku wadato xoogaa halkaas la sheegi karaa inuu dhaqdhaqaaq ka jiro si kasta marka haddaba ha noqoto madaxweynaha Soomaaliya taas bedelkeeda wuxuu ku mashquulsan yahay safarada dibadda heshiisyada difaac ee carrada ka batay maalin walba dawladda la soo geliyay heshiiska difaaca ee dal hebel madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsan yahay waqtiyada uu rabo inuu shacabka xoogaa bal kasbado inuu direyska qaato booqashooyin ku tago jiidaha hore ee la dagaalanka argagixisada oo markaasi saynu sheegnay dagaalkaas bilow mooyaan dhammaad lahayn dawladduna ay guulaheeda iska sheegato ayna mar walba cudurdaarka halkaa u badiso marka ay ku soo fashilanto dhinacyada kale ee ololaha ka wado way ka mid tahay wax ka beddelka dastuurka ee madaxtooyadu ay wadato ee fashilka ka yimid tan hadda aan ka hadlayno ee dawladdu ayna diyaar u ahayn in dalkii ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayna dawladda damaceeda rasmiga ah ayna soo bandhigin uu yahay inay xukunka sii joogaan oo ay muddo kororsi samaystaan saaxiibadooda ay ood wadaagta yihiin ay ka bilaabaan tijaabadaas ee maamul goboleedyada iyagana muddo kororsi u sameeyaan madaxweynuhu khudbadahaas macaan haddii ay suurto gasho uu ka jeediyo maalinta jimcada masjidka ama haddiiba ay xaaladaasi yar adkaato uu siday dhacday dhowaan khudbadiisii u dambeysay uu ka jeediyo warbaahinta uu sheego inay ka go'an tahay in dalka doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo ay dhaqan gelin doonaan geed dheer iyo geed gaaban u fuuri doonaan caqabad kasta u jeedi doonaan dardaaran madaxweyne oo markaasi ah ee dhegaysanina kuwa doonaya in shacabka Soomaaliyeed uu ku sii xidhnaado dabarkii ku xidhnaa muddo ka badan 34 sano waa dardaaran oday iga dhagaysta iga qaat halkaas ayuu hadda xaalku maraya cidda hortaagan horay baan u soo qeexnay u bandhignay marar kale waa dul joogsan doonaa xaaladaha laakiin Soomaaliya halkaas ayay taagan yihiin markasta wixii arrimaha ka soo kordhana halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala